musharax xildhibaan cali maxamed juqombe oo ah musharax u taagan matalaadda kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Cadaado. Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, nabadoono, aqoon-yahano, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. Soo dhaweynta kadib musharaxa iyo xubnihii la socday ayaa loo gudbiyay howlka garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. Ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Nuur Yarow Xeele oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay musharaxa. waxaan leenahay hambaliyaan leenahay waliba si wanaagsan waxa uu sii mahadcelinaynaa maadaama musharaxii ugu horeeyay reer Cadaado ee deegaan doorashadiisu soo hormaray. waxaan leenahay soo dhawow intaas waxaad moodaa xoogaa inaad musharaxiintii kale nooga soo dhawaad doonto. waxaan rabaa marka halkan inaan ka siiyo fariin reer Galmudug oo dhan fariintaas oo ah dhammaan inaan ku soo wada dhaweyn doono sida xildhibaanka reer Cadaado ee deegaan doorashadiisu tahay Cadaado aan u soo dhaweynay inaan ayagana u soo dhaweyn doono reer Galmudug oo dhan gacmo furan ayaan ku soo dhaweyn doonaa. waxaan ku soo dhaweyn doonaa deegaankii ay yaqiineen oo ay joogeen inay ku kaameen gareeyaan aan si sharaf leh oo wanaag badan ugu soo dhaweyn doonaa maadaama ay Cadaado iyo Dhuusamareeb ay tahay laba magaalo oo hal saac loo kala socdo. ayagana waxaa leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa leenahay musharax soo dhawow deegaankaagii waaye waliba 2016 waxbaan looga bedelan maanta dadkii waxay diyaar u yihiin inaan qofna qabayna lagu raacin qofna lagu raaco qof walba tabartiisa taagtiisa inuu taagsado. dhanka kale wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud ee Galmudug iyo qaar ka mid ah nabadoonnada magaalada Cadaado oo goobta ka hadlay ayaa dhankooda soo dhaweeyay waxayna sheegeen inuu mudan yahay matalaadda beeshiisa ee kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. nimid soo dhaweynta cali maxamed maxamuud cali juqombe. marka hore cali waxaan u sheegaynaa waxaad u jeedaa kalsoonida lagu soo dhaweeyay intay la eg tahay dadkan walaalaha ah oo deegaanka Mudug iyo Galgaduud lama soo qasbin doorasho ay doorteen inay ku soo dhaweeyaan ee marka hore ku yimaadeen. dadweynaha waxaan u sheegayaa dadka tartamaya xildhibaanada doonaya nin walba kartidiisu meel bay ku egtaa nin waxay ku egtahay uusan dhaafi karin mooshinka madaxweynaha laga keenayo inuu xoogaa ka qaato uusan dal iyo dal midna wax ku qaban. ninna wuxuu ku egyahay cali juqombe wuxuu ku egyahay ad ogtihiin dalka hadda ka hor inuu ka shaqay jiray wax badan inuu ku siyaadi karo. xildhibaanka musharaxa ah cali maxamed sheekh maxamuud dadweynaha kan halkan isugu yimid ku soo dhaweeyay waxaan u malaynayaa ilaa 50 beelood inuu ka kala yimid oo ka tirsan Galmudug. soo dhaweyn diiran baan ku soo dhaweynaynaa 14 kana waan ku salaamaynaa soo dhaweyn diiran baan ku salaamaynaa. waa xil aad iska leedahay oo mudan tahay mudana musharax soo dhawow waxa la dagaal nin gala ayaa loo dirsadaa xilna waxa loo dhibaa nin gudan kara waa xil aad gudan karto waa xil aad mudnaan u leedahay. dhammaan in kasta oo cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadan ballaaran ee lagu soo dhaweynayo musharaxa cali maxamed maxamuud dhammaantiin waa salaamantihiin. salaan kadib mudana musharax ku soo dhawow deegaankaagii deegaan doorashadaadii maantana aad arkayso shacabka deegaankan degan kalsoonida mugga leh iyo meeqaamka ay kugu soo dhaweeyeen. taasi waxay ka turjumaysaa dadka deegaankan degan ee kursigaaga uu dhex yaalo deegaan doorashaduusi uu dhex yaalo ahamiyadda ay ku hayaan iyo kalsoonida ay kugu qabaan. intaa kadib dadka reer Galmudug oo odayaasheen dhaqanka ee suusuuban ee muxtarimiinta ay ugu horeeyaan waxaan kula dardaarmi lahayn ummadan masayrkeedii iyaga ayaa maanta gacanta ku haya. dalku ma gaarin qof kasta inuu codkiisa xaq u yeesho ciduu doono inuu siiyo maadaama aad wakiil ka tihiin ummadda deegaanka degan codkooda aad wakiil ka tihiin waxaan idinkula dardaarmaynaa
in wixii hore wax laga bedelo in dadku waa isyiqaan waa la isbartay ummadda masiirkeeda in loo dhiibo cid mudan. ugu dambeyn musharax cali jaqombe ayaa ugu horreyn u mahad celiyay qaybaha kala duwan ee bulshadii soo dhaweysay waxa uuna sheegay inuu yahay musharax u taagan kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyay haddii uu ku guuleysto inuu gudan doono waajibaadka saaran iyo dhammaan qof kasta iyo koox kasta maqaamka ay ku joogaan dadkan soo dhaweey ee ka kala yimid deegaano kala duwan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan ka cudur daaranayaa horta soo daahidda intaas kadib waxaan rabaa horta booqashada aan maanta halkan ku idin mar hore qorshaysnayd ishii saddexaad ayaan qorsheynay inaan idin imaan doono waxaa dib u dhigay deeqaraalsihii siyaasadeed waddanka ka dhacay runtii waddanku colaad baa mar looga baqay ilaahay xukunkii iyo dadaal la sameeyey ayaa hadda ku darsigii dhibka badnaa iyo colaaddii laga baqay dib loogu noqday arrinta marka oo booqashadayda laba arrimood bay daaranta laba akhbaarood akhbaarta koowaad waxa weeye oday baa geel irmaana waxa la ceel keenay marka wuxuu yiri leeyahay aniga hashii heblaha haddaan isla socno inaan biyo rabno oo ceelka aan biyo ka rabno way caddaha leeyahay marka mar haddii sawiradii iyo akhbaartii inta aad timaadeen hadda inaan musharax xildhibaan golaha shacabka ahay taas waan ahay igama baanay horta sidaas ay ku sii haysateen kow arrinta labaad waxa weeye waxa la weydiiyay ma dhuusan mareeb baad aadaysaa mas'aadaad oo run ah runtii way doorashadii waxa ka dhacaysaa dhuusan mareeb marka akhbaarta idaaranta waxa weeye deegaan iyo dad la matala deegaankii iyo dadkiina waa kan deegaankiina waa kan marka processku meel kasta ka dhaco laakiin waxaan fahamsanahay meesha aan matalayo iyo dadka aan wax ka rabo iyo deegaanka ka shaqeey doonay halkan yihiin Hashim Umar Hassan telefishinka 5 Somali TV magaalada Cadaado.